السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وندين سلامي ولا عليه سوماليات من ربع جوكتين كسو دبادة جنال كينا هلك عدنا قداوان إنسان ولدن لايف ستايل أما عدنا قل سوعتان وامركلا إيا برنامج يديني تحنها أهاي وعدنا وقو براتين أيان هلك ندين كسو قد بينينا sidoo kale waxaad inooga barateen barnaamijkeenii ahaay aan horadii ku ballan qaaday inuu ahaan doono taxano oo la magac baxay higsiga nolosha sidaa hore usoo daabateen waxaan barnaamijyadaas aan idinku soo weydiiyey dhowr su-aalood oo taxano ahaay dhowr su-aalood oo quseeyey nolosha bini-aadinka noocuu doona ha ahaado rag iyo dumarba uu wada quseeyey iyo qof walba oo dhalinyaro hadda u baahan inuu noloshiisa horumar wanaagsan iyo nolol qurux badan inuu ku noolaado jecel waa uu quseeyey su-aalo fara badan ay ahaayeen sida saan jeclahay ama arjeyna waa daawateen qaarkiin commentiyada way kaga soo jawaabeen fikradahooda qaarkiina fariin ahaan ay igu soo direen jawaabahooda maasha allah aad iyo aad idinkugu mahad celinaya sidoo kale anigana waxaan jeclaystay ama aan jeclahay mar walba inaan idinla qaybsado wixii ra'yi ahaan aniga aan qabo iyo wixii aniga awoodeyda ama karaankeyga aan kaga jawaabi karo aan jeclaystay inaan halkan idinkaga soo gudbiyo waxaynu dhici doonaan sida tan la socosho wacan iyo ka fogasho wacan sida aad hore uga soo daawateen janalka walaasheen ayaan bilal qaybta koowaad ee barnaamijka maanta aniga aan idin soo gudbinayo waxaan idinku soo weydiiyey dhowr su-aalood oo fara badan su-aalahaasna waxaa ka mid ahay ma deegsatay qorshe nololeed yacni qorshe nololeed qof waliba bini-aadin ah qorshe ayuu leeyahay qof bilaa qorshe ah nolosha wax oo ka qaadaya ama wax ay u tarayso ma lahan dunidan waxaad ka tegaysaa adoo yacni waxba aadan qabsanin oo waxba yahay ama magac ha ahaado hanti ha ahaado anything oo dunidan loogu talagalay inuu qofka bini-aadinka uu lahaado wax adiga aad ka leedahay malahan laakiin haddii aad tahay qofka subax markuu soo kacayo uu qorshe kusoo kacayo uu qorshe ku seexanayo oo ilaahaygiisana talada saaranayo yani waxyaalo fara badan ayaa u qabsamaayo laakiin haddii aad dhahdo qorshe malihi waa iska socdaa yani taas waxay la mid micno tahay qof waxba yahay ayaa la mid tahay waxaa muhiim ah inuu qofka bini-aadinka uu qorshe leeyahay sidoo kale su-aasheen labaad waxay ahayd ma deegsatay qorshe aad ku haminayso sax qof walba oo bini-aadin ah da-duu doon ha jiro wax hami ayuu leeyahay qof bilaa hami ah ma jiro waxay doonta ha ahaato يعني هamiga aad haminayso intay doonta ha lahaa gaarto ha badnaadaan ama ha yaraadaan wax hami ayaad leedahay weynow ama yaraaw ama heebtaa doonta ka dhalo ama hanti lahaaw ama ha lahaanin waxaa muhiim ah inaad hami leedahay oo waxa xaqiiqi oo la hubo qof waliba inuu hami leeyahay yani qof hami la-aan dunida ma jiro waxaana muhiim ah hamiga aad ku hamisay inaad yani ka dhabayso oo waqti walbo aad yani aad naftaada ka dhaadhiciso in aad waxaasi aad gaari karto ha isdhihin marna ha iska dhaadhicinin aniga waxaan waa ku hami laakiin ma awoodi ha dhihin never afkaaga ha barin waxba waxaas ma awoodi isbar inaad wax waliba aad qabsan karto ilaahay lixaadkaaga wuu kuu dhamaystiray haddii aad lixaad la-aan tahay xitaa wax waliba waad samaysan kartaa wax walibana waxay ka imaadaan maskaxda qofka bini-aadamka uu iska waxa yacni maskaxdaada ayay wax waliba aa kasoo go-aan ay kasoo maaxaan waa samayn kartaa ha isdhihin waxaas ma samayn karin naftaadan ha barin waxaan ma qabsan kari ha isbarin waxaad doontid ahaa noocaad doontid u ekaa bulshada noocaad doontid qaybtaad doontid kaga jir number weyn kaga jir ama number yar kaga jir wixii aad ku hamisay isku day inaad qaban karto iskuna taxluuji inaad samaysan karto wax walba oo facaaga ama qofka kula levelka uu samaystay isku day inaad adigana aad samaysan karto next su-aasheena xigtay waxayd ahayd ma leedahay qorshe aad ku haminayso in aad ka gaarto noloshaada waxaan filaya inay labadan su-aalood isku mid ay yihiin waana sax in uu qof waliba uu leeyahay qorshe uu ku haminayo qorshe iyo hami way kala yihiin waana idin sii sharxi doonaa qorshaha iyo hamiga waxay ay kala yihiin laakiin nolosha waxaa muhiim ah inuu qofka bini-aadinka number one waxaa muhiimka u ah in uu leeyahay qorshe go-aan hami sidoo kale yool I think yool iyo go-aan inay same ay yihiin aan saasaan rajeynaya waa same waxaa muhiim ah sidoo kale inaad yeelato yoolkaas iyo qorshahaas iyo hamigaas inaadna waana ka dhabeyn kartaa ka dhabeey ha isdhihin wax ma qabsan kari waad qabsan kartaa noocaad doonta waa qabsan kartaa sidoo kale su-aasheena kale waxay ahayd muxuu yahay qorshaha aad degsatay noloshaada in aad ka gaarto next waxay ahayd number 5 ma diyaarsatay waqti go-an aad ku qabsan karto qorshihii aad degsatay beri intaas ayaan habeenkii markaas seexan isku seexo inaad dhahdo insha allah mar walbana ha ka tegin ereyga insha allah
إن شاء الله عاو بري مركي واجي بريو وحاس أيان سمين qoraxda kuugu dhacdo adigii oo qorshii xali aad ku seexatay insha Allah aad dhahday in aad sameeysan karto haduu Ilaahay uu ku idmo Ilaahay uu ku qoray laakiin adigana la imaw dadaal Ilaahay insha Allah dheh laakiin ka kacjeefka oo dadaalkii sameey la imaw wixii aad ku hamisay oo aad xali ku seexatay markaas seexanid la imaw sidoo kale in hadii noqo qof yani waqtiga wixii uu go'aansaday uu qabsan karo hadii aad caaw ku seexatay waxaan qabsanaya dheh hadana bishaan markay bilowdo ilaa bisha markay dhamaato qorshahaas ayaan ku soconaa sanadka soo socdo qorshahaas aan ku soconaya shanta sano ee soo socdo qorshahaas mar waliba noqo qof waaga ugu barinayo ilaa oraxda u sii dhaceyso qorshe u go'an kuna seexana kuna soo toosa in waxaas uu qabsan karo waana qabsan kartaa wax waliba awoodeed Ilaahay uu ku siiyay ma sha Allah isni jibinin adiga moraalka adiga ayuu ka imaada hadii adiga moraalka aad isku dhisin inta qolka kaliya gashid miraayada soo hor istaagtid isdeh waxaan waa sameyn karaa marka dhahdid insha Allah ku dar ku dhaqaaq qorshihi waa qaban kartaa Ilaahna kula garab karo insha Allah dhamaanteen waan jecelnahay inaan nolol qurux badan aan ku noolaano waan qof waliba bini aadin uu jecel yahay nolosha qofka garaadkiisa ama levelka ee nolosha uu ku noolaaday mid ka sii sareysan way mid ka hooseysan inuu qof bini aadin ku noolaado jecel ma jiro levelka qofka arday ha ahaado ama qof hooyo ha ahaato ama aabba ha ahaado qofka la levelka ama saaxiibkiisa ama u dhow nolosha uu ku nool yahay haday tahay nolol qurux badan asigana sidoo kale uu jecel yahay noloshaas qofkaas ku nool yahay mid ka sii qurux badan oo ka sii wanaagsan oo dadka dhan isa soo fiirna inuu ku noolaado jecel yahay laakiin goorma ku noolaan kartaa waxaa ku noolaan kartaa marka adiga aad moraalka isku dhistid adiga hadaad isku dhisin qofku dhisayso Ilaah uu rima jirto faas adiga noloshaada dhiirigeli waxaan kugu la talinayaa gabar yahay ama wiil yahay hooyo aabo qofku doona ahaado waxaan kula talinayaa waxay tahay naftaada faas wan adiga noqo qofka asiga is dhiirigelin lahaa ha ka sugin qof kale inuu ku dhiirigeliyo adiga is dhiirigeli adiga is canaano qalad hadii uu ka dhacay oo noloshaada Ilaahaagu u laawo next adiga is dheh adiga is dhiirigeli wax waliba adiga ka bilaawdaan habeenkii markaas seexanayso oo sariirtaada aad tagto xisaabtan maanta oo dhan waxaan soo qabtay maanta waan baxay shaqo ayaan aaday waxaan soo sameeyay adigoona qabsana waajibaadkii Ilaahay ku saaray adigoo sameeysanay hadana tan danahaaga gaarka ah ku xisaabtan maxaa soo qabtay xal qorshihi aniga aan ku seexday waaga markuu iigu bari maxaan sameeyay hadii aad hore u degsatay qorshe nololeed fadlan dib u eegis ku samee isla waqtigan ha dibdhigin waqti kale ha u sugin waqti kale isweydii qorshihii aad noloshaada ugu talagashay ma la rabay sidii aad ugu qabsoomay sidii la rabay aad ugu talagashay sidoo kale waxaad isweydiisaa maxaa ila gudboon si aan u gaaro qorshihii aan u degsaday noloshayda aan ugu talagalo hadii aad horay u degsanin qorshe nololeed fadlan hada bilow daqiiqadan hada aad daawanayso videogayga hada bilow soo qaado buug iyo qalin in ogow waqti waliba oo ka tagay waa mid ka tagay qorshahaaga iyo noloshaada hada bilow soo qaado buug iyo qalin fariiso meel degso qorshe ugu yaraan waxaad degsataa qorshihii aad ku joogi lahayd ama aad ku socon lahayd 1 week ha ahaado 1 month ugu badnaan halka sano ee soo socdo degso qorshihii aad ku socon lahayd week maalin bil intaba waxaad degsataa qorshihii aad ku noolaan lahayd adigoona ka tagaynin mar waliba aad niyadaada ay soo gasho inaad qorshe degsato ama aad go'aan gaarto ama aad shay sameyso ama hor u dhaqaaq inaad sameyso aad go'aansato ama aad ku hamiso ha ilaawin mar waliba in Ilaahay dunida ku keenay aad talada saarato qof walba oo guul weyn gaaro alla ka soko waxa u sabab ah go'aankii iyo qorshihii uu degsaday iyo habkii uu maray sidoo kale go'aan gaarista aad gaartay iyo qorshihii aad degsatay waxay kugu caawinaysaa ama ay kugu dhiirigelinaysaa in aad gaarto higsigaagii dhow iyo inaad ku guuleysato mustaqbal wanaagsan iyo nolol qurux badan oo aad ku faraxsan tahay sidoo kale waalidiintaada ay kugu la faraxsan yihiin aakhirana aad meel wanaagsan aad tagayso oo Ilaahay aad ku raali gelinayso dadka familiyadaada iyo dadka ku xiran iyo kugu dhow aad ku farxad gelinayso iyo number 1 naftaada aad ku farxad gelinayso sidoo kale waxay kugu dhiirigelinaysaa in aad go'aankaaga inaad gaarto inaad yeelato
hiigsi dhow, nolol qurux badan, nolol wanaagsan, qof walba oo garaadkaaga ee noloshaada uu kula jeclaanayo qaabka aad u nooshahay. Sidoo kale waxay ka caawinaysaa in aad gaarto mustaqbal wanaagsan. fadlan sameyso go-aan nololeed oo naftaada aad ku dhiirigelinayso oo hiigsi wanaagsan leh. sameyso go-aan wanaagsan oo hiigsi wanaagsan oo qurux badan leh. yacni hiigsi waxaa waaye meesha aad haminaysa in aad gaarto. hiigsi sidoo kale wuxuu yahay waxaana samaystay haddaad dhahdo oo aamusto hiigsi wax la dhaho ma lihin. laakiin hiigsi waxaa waaye waxaad hiigsanaysaa meeshaas inaad gaarto waad hiigsanaysaa. laakiin talaab walbo aad u qaadayso go-aanka aad gaartay waxay kugu saacinaysaa inaad talaabtina aad qaado. qorshahaagina waad ku guuleysanaysaa, go-aankaagina wuu kuu fulayaa, naftaadina way ku qancaysaa oo because intaad baxday aad buug iyo qalin soo qaatay, aad waxyaalo badan aad qoratay noloshaad inaad ku samayso. qorshe wiig la adeegsatay, mid bil la adeegsatay, mid sanad la adeegsatay, naftaada way qancaysaa. maanta haddii aad qorshe xali aad ku seexatay, maanta kaliya haddii kii xali aad ku seexatay aad samayso, naftaada aad kugu farxaysa. dadka kale iska daa, number 1 naftaada kugu farxayso. markaad soo laabato oo xali wixii aad ku seexatay maanta aad soo qabatay oo ku guuleysatay, number 1 waxaad u mahadcelinaysaa ilaah u mahadceli. second, naftaadii iyo xubnihii jirkaaga ahaa oo kugu caabiyey oo ku saaciday in wixii aad go-aan samaysatid ayagu imaam haddana u mahadceli. qof kale intuusa kuu mahadcelinin ama qof kale intuu ku dhihin wax qurux badan ayaad samaysay intuu ku dhihin, adiga iska bilow. number 1 adiga isku mahadceli, number 1 adiga isdhiirageli, number 1 adiga mooraalka isku dhis. adiga isdheh waad mahadsan tahay, isdheh wax qurux badan ayaad samaysay. ha isdhihin waxaan waa sameeyey just qof kale ay dhahaayo, dadka ay dhahaayo ii mahadcelino looma baahno. dadka kale way kuu mahadcelin haddii aad wax wanaagsan samayso, haddii aad wax xun samaysan ayaga kaa celina. laakiin adiga naftaadi dheh waxaan way qurux badan yihiin, waad samaysay, maantana waa sii wadi kartaa, waa mahadsan tahay nafteydii adiga igu dhiirigeliyay inaan sameeyo waxaan, adiga igu caabiyay inaan sameeyo. naftaada u mahadceli, ilaah ka sokow naftaada u mahadceli, xubnaha jirkaaga u mahadceli. markaa shaqada kasoo laabato naftaada relax sii, because ayadaa kugu dhiirigelisay ilaah ka sokow, ayadaa kula samaysay wixii adiga. xubin kaligeed gacan kaligeed ma dhaqaaqdo ilaa laakiin qalbiga ee kaga soo go'do, niyadaadii ay ka go-an tahay waxaan inaad samayso. naftaada u mahadcelin number 1. aniga waxaan kugula talin lahaa waxay tahay qof kale intaad ka sugi lahayd mahadcelin ama qof kale dhiirigelin intaad ka sugi lahayd, wax waliba adiga isku dheh, wax waliba dheh aniga ayaa isku mahadcelina. miraayad imaa soo adiga ma rabto inuu qof kusoo hor istaago oo ku dhaho heblaa waa mahadsantahay, hebel waxaasaa samaysay maasha allah, aaday u qurux badnaayen, aaday u fiicnaa. qof kale intuu ku dhihin saabax miraayadaad soo hor istaag, adiga subaxi aad ku labisatay haddana ayada soo hor istaag, dheh waxaanaa sameeyey maanta maasha allah, wax qurux badan ayay ahayn, waaw waan sii wadi karaa. laakiin markaas naftaada way kusii jeclaanaysaa. subaxii adoo hurdadii raba xitaa waa qofaad waxaad ogeynaa ku kicinaa, waa mooraalkii kuu dhisnaa. laakiin haddii wixii adiga niyadaadiba aan sii raacinin, niyadaada ay ku jirin inay waxaan ay qurux badnaayeen, subaxii hurdadu way kugu celinaysaa. laakiin haddii mooraalkii u dhisnaa, adoo jiifo oo hurdadina jecel inaad sii seexatid oo sariirta inaad kusii nagaatid aragtid, waxbaa ku kicinaa, waa mooraalkia ku kicinaa oo ku dhahayo soo bax, aan soo shaqayno, aan soo qabano, waan qaban karnaa. mooraalkaaga ku dhahayo fadlan meesha kasii wad, mooraalkaaga ha dhisnaado. qof kale yuu ku mahadcelin haba ka sugin weligaa, adiga isku mahadceli, adiga isku mooraal dhis. maasha allah khiyaarteyda, haddii aan dhaho barnaamijka hiigsiga nolosha oo taxanaha ahaa ayaan sii wadayo. haddii aan dhaho barnaamijku waqtiga wuu nagu sii dheeraanaya, annagana waa iswada naqaanaa soomaalideena ma jeclo time badan in barnaamijyada loogu soo duubo. waxaan jeclaystay inaan halkan kusoo gabagabeeyo. taxane ayayna noo yihiin, part 3 waa idin soo gelin doonaa. janalkeenana waxyaalaha aad ka heli doontaan waxaa ka mid ah oo aniga aad iyo aad muhiimada aan u saarayo waxay tahay cuntada ilmaha ka yar 1 sano, waa 6 bilood iyo wixii kasii badan ayaan diirada aan saari doonaa insha allah. kama marno majaajilista waa dhadana shactirowle tahay, laakiin aniga ma ihi shactirowle. waxaan is aaminsanahay inaan idinka qoslin karin, laakiin idinka ayaa idhaho waa naga qoslin kartaa. haddii aan idinka qoslin karo commentiga ayaad igu soo qoraysaan, waan sii wada dhiirigelintiina ayaan mar waliba jeclahay inaan riwaayad kusoo duubo. weligay maanan duubin, laakiin waa dhiirigelintiina waxa aan hadda inaan riwaayada aan sameeyo ama aan isla sameyn keligayga ma sameeyo. walaashii macaan ayaan mar walba garabkayga taagan, ayada ay ila sameyso.
la-aanteedana maba nuureyso riwaayad aan isla soo sameynay because idinkaa hore u dhahdeen labadiina waa isku soo bixaysaan maasha allah idinka ayaa hore noo sheegay la-aanta anigana ayadoo ka maqan ma sameyso anigana sidoo kale ayadoo iga maqan ma sameeyo mar waliba waan isla sameynaa maasha allah halkan ayaan kusoo gabagabeynaa waxaan haddeertaan waxaan soo gaarnay guntii iyo gabagabadii barnaamijkeena waxaan idin leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu subscribe-kii like-tii share-kana waa halkiina mar waliba waa isku ognahay ayaan la iloobin إن شاء الله كومنتيجينا وإنه مهم فكرتهنا مهم أي إنه يهين وحن إذن لا يهاي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.